السلام عليكم. sida uu u bilowday duulaankii Israa'iil ay ku qaaday magaalada Gaza waxa soo baxaya isbedel ama munaafaqadii reer galbeedka markaas ay sheegi jireen in ay jiraan wax lagu magacaabo xuriyatul qowl. hadda sida warar soo baxaya ay waxay sheegayaan saddex wariyo oo islaam ah ama muslimiin ah in shaqada looga joojiyay inay taageereen oo kaliya reer Falastiin. saddexdaas waxay ka shaqeynayeen TV caan ah oo ku yaala wadanka Mareykanka oo lagu magacaabo MSNBC. saddexda wariyana waxay ahayn saddex wariyo oo markaasi caan ka ah dunida oo dhan. waxa ugu horeeya wariyaha Britishka ee lagu magacaabo Mahdi Hassan oo isaga asal ahaan ka soo jeeda wadanka Pakistan ayaa shaqada waxa looga hakiyay in markaasi uu taageeray ama uu aad uga xumaaday falkii ay Israa'iil markaasi ay kula kacayso dadka reer Falastiin gaar ahaan magaalada Gaza. sidaas oo kale waxa shaqada laga joojiyay nin lagu magacaabo Ali Felshi ayaa isagana oo ahaa reporter ugu soo hadlayay dhanka Israa'iil ama Tel Aviv ayaa isagana shaqada laga joojiyay maadaama uu taageero ayaa leeyahay ama uu muujiyay dareen ah inuu ka xun yahay falka markaasi ay Israa'iil ay ku hayso dadka reer Falastiin. sidaas oo kale shaqada waxa laga joojiyay nin isagana lagu magacaabo Ayman Muxudiin oo shaqada looga joojiyay isla markaana kamid ah dadka falanqeeyaasha ah ee channelkaas ama TV-gaas lagu magacaabo MSNBC u fadhiya wadankaasi Mareykanka ayaa shaqada laga joojiyay kadib markii uu aad ugu xumaaday ama uu falanqeyn ka bixiyay sida xasuuqa ay reer Israa'iil ay ugu geysanayaan dadka reer Falastiin. Mahdi Hassan wuxuu kamid ahaa wariyaasha ugu caansan dunida oo markaasi ka soo shaqeeyay warbaahinta kala duwan ee Ingiriiska sida ITV, BBC, Channel 4, sidaas oo kale channelka lagu magacaabo Sky gaar ahaan barnaamijka loo yaqaan Breakfast oo subaxdii aroortii hore soo gali jiray. Mahdi Hassan wuxuu caan ku ahaa inuu su'aalo markaasi aad u adag u weydiiyo wasiiro kala duwan oo markaasi xilalka haya Israa'iil ama Yahuuda iyagoo markaasi aad ugu xumaan jiray su'aalaha ninkaas uu ku dhiiran yahay inuu weydiiyo dadka madaxda. hadda channelkaas saddexdaas wariye oo markaasi ka shaqeyn jiray channelkaas Mareykanka ee loo yaqaan MSNBC ayaa waxa uu hakad u geliyay saddexdaas wariye shaqadooda maadaama ay taageero ay u muujiyeen dadka reer Falastiin. sidaas oo kale Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada kale waxay bilaabeen cid walba oo markaasi ka hadasha ee arinta reer Falastiin ama taageero u muujisa in markaasi tilaabo ay ka qaadi doonaan. hadda caawadan aan la hadlayo laba gabdhood oo markaasi maalintii Sabtida ahayd banaanbax isugu soo baxay meel kamid ah UK ayaa la baadigoobaya iyagoo markaasi dhabarkooda dambe ku soo dhagsaday sawir markaasi dadkii raggii Xamaas ahaa ee weeraray Israa'iil oo baarashuud xiran. sababaha gabdhahaasi sidaas oo kale loo baadigoobayo ay booliska u baadigoobayaan waxa kamid ah iyagoo markaasi qof markaasi dadkii banaanbaxayaalka ahaa ee markaasi taageeray Israa'iil ay ku yiraahdeen dib ayaad u xasuusan doontaan 1940kii waxa idinku dhacay. iyo sidaas oo kale in dhabarkoodii lagu arkay ciidamadii Xamaas oo markaasi baarashuud iyagu ku dagay ama ku weeraray Israa'iil. hadda wadamada reer galbeedka cid walba oo soo hadal qaada arinta reer Xamaas waxay u arkaan inuu yahay qof mujrim ah oo markaasi xabsi mutaysan kara ama hadii uu yahay qof markaasi qaxootina in wadanka laga musaafurinayo. wixii la sheegi jiray shalay oo ahaa xuriyatul qowl iyo wixii kale maanta waa ay dhamaatay.